la soo u soo diyaargaroobaan imtixaanaadka si loogu talagalay casharada soo akhristaan sidoo kale waxaan fariintaas ka mid ah ayadana sidoo kale in waxaan ku yiraahdaa ardaydu ay ka soo tagaan waxyaabaha aan la ogolayn ay ka mid tahay mobilada ay ka mid yihiin jaakaduhu ay ka mid yihiin koofiyaduhu ay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah inay soo qaataan uniformka loogu talagalay ardayga waxaa kaloo muhiim ah ayadana inay wataan aqoonsiga ardayga loo sameeyay oo sawirkiisa xogtiisa ay ku qoran tahay inta marka laga yimaado waxaa jirta waxyaabo kale mamnuuc ka ardayga inuu sameeyo waxa kamid ah qish inuu isku dayo ama wax ka soo saacidaya qish inuu keensado sida inuu warqad hore u soo qaato buug hore u soo qaato saacadaha digitalka wax lagu sawiro mobilada waxaas oo dhan waa lama ogola in lala soo galo xarunta guud ahaan ardaydu inay telefoonada uga soo tagaan guriyahooda oo aanay soo qaadanin arinta kale labaad waxay tahay inay ardaydu xogta markay qorayaan macluumaadka laga buuxinayo ardayga oo warqadda koowaad ay ku qoran tahay inay si sax ah loogu talagalay u buuxiyaan waxa jirta arday magacyadooda hilmaamaan roll numberadooda hilmaamaan marka warqaddu waxay leedahay dhowr bookis ay leedahay bookiska koowaad waxa ku qoran magaca ardayga oo afaran waa inuu meeshaas oo magaciisa afaran ardaygu u geliyaa labo waa inuu geliyaa roll numberkiisa oo dhameystiran oo si cad oo la arki karo waadix u qoran saddex inuu qoranta dugsiga uu ka socdo magaca dugsiga uu dhigto afar inuu xarunta imtixaanku gelayo intaba inuu ku qora ay muhiim tahay bookiska waxaa jira hoos ku qoran macluumaadka oo ah cadaynaya inta bog ee imtixaankan ka kooban yahay inaad iska hubiso nambarka meesha ku qoran bookiska sidoo kale aad tiriso warqadaha tirada kor aad ku soo aragtay ma ka koobanta warqadani haddii wax isbedel ay jiraan oo inaan warqadani inta nambar ay ku qoran ay meesha ayna kugu cadayn warqadihii waxaa laga rabaa inaad la wadaagto ilaaliyaha fasalka ilaalinaya isagana kaa saacidi doono warqadii saxda ku sii doono waxaan isleenahay marka insha Allah tacaala ardada haddii ay fariimaha ay si loogu talagalay u qaataan inay wax dhibaato ayna la kulmi doonin oo caqabadihii inuu arday warqad ka lunto ama la aqoonsado warqado kale iyo ay meesha ka baxdo wax kastoo caqabad u keeni karaan ay meesha ay iska ilaaliyaan waxaa kaloo iyadana muhiim ah inay waqtiga ilaaliyaan imtixaanku wuxuu bilaabanaa 2